maanta mawduuceennani waxaynu ku qaadadhigaynaa oo ku eegaynaa masaska nooca ugu halista badan leh. haddaba kaalinta koowaad waxaa fadhiya maska loo yaqaan fiber snake. waa nooc ka mid ah masaska ugu halista badan leh dunida, waxaana inta badan laga helaa meelaha qalalan ee qaaradda Afrika sida saxaraha dalka Namibia, South Africa, Libya iyo saxaraha bartamaha bari ee Hindiya, Pakistan iyo Sri Lanka. waana qaar qaybaha jirkooda uu sameeyo tabaq, iyagoo jirkooda isku xoqaya isla mar ahaantaasina ka dhigaya digniin. nooca maskani waa mid aad u yar jir ahaan, balse waa mid halis badan, waxaana lagu qiyaasaa meelaha uu joogo inuu dilo dadka ugu badan marka la garab dhigo masaska kale ee ku nool dunida ama caalamkan ay ku noolahay. maskani qofka uu qaniino waxay suntu ku faafaysaa jirkiisa wax ka yar sikino, waxaana inta badan weerartaa xubnaha muhiimka sida wadnaha iyo maskaxda, waana yar tahay dadka ka badbaada. waxaana loo dhiman karaa maskani qaniinyadiisa muddo ka yar 30 mirir. haddaba kaalinta labaad waxaa fadhiya maska loogu magacaabo cobra. isagu waa boqorka masaska, waana midka ugu dheer inta la og yahay, waxaana dhererkiisa lagu qiyaasaa 3 mitir ilaa 6 mitir, waxaana laga helaa dalka Hindiya iyo koonfurta qaaradda Aasiya. walow ay jiraan masas ka khatar badan maskan, haddana waxaa la sheegaa inuu yahay midka ugu halista badan leh. kobruhu waxaanu halkii mar qaniinyadiisu dili kartaa 20 qof ama hal maroodi, waxaana suntiisa laga helaa maadada loo yaqaano neurotoxin oo iyadu aad iyo aad u ah mid halis badan jirkana ku faafaysa markaba. maska nooca saddexaad waxaa loo yaqaanaa maski shabeelka ama tiger snake, waxaana laga helaa dhankan koonfureed ee dalka Australia, taasoo xataa ay ka mid yihiin xeebaha loo yaqaano Tasmania. waxaa had iyo jeer noocan lagu garan og yahay kalarkiisa oo u eg shabeelka iyo nooc kale oo iyaguna u eg kookaha oo aad iyo aad u madow. nooca maska ah waa mid halis badan, waxaanu sababi karaa qofka inuu qaniino, xataa uu curyaamin karaa, oo waxaa inta badan ka curyaamiyaa lugaha iyo qoorta. dadka uu qaniino boqolkiiba 82% ahaan waxay dhintaan 7 saacadood kadib marka uu qaniino bahalka loo yaqaan maskan lagu magacaabo tiger. waxaa la sheegaa maska noocanihi ee lagu magacaabo tigerku xataa haddii jirkiisa laga kala jaro bartanka inuu isagu dib u sii noolaan karo, isagoo inta badan cunaya ciidda iyo waxyaabaha la halmaala.